ayaan kuu sheegay horta waa ka raalli ahaanaysaan waxaanu qabanay ma jirto waa been wey midh maanaan qaban waa kow waxaan idinku yidhi waxbaanu dhisnay waar midh maanaan dhisay waabaanu dumin gaadhnayba hadda wasiir waxaadna lahayd waxbaanu qabanno waxbaanu midh lama qaban miisaaniyad baan idinku yidhi waxay gaadhay 10 milyan war waa 10 shilin soomaaliya oo rifantay wey waxba ma jiraan war ma kuu sheegaa siida adeer warkaa imika siida khayr allah ku siiyo waaye horta intaana sii dayn mudane wasiir markaad xukuumadda ku jirtaan oo xukuumadda ka tirsantihiin waxaad sheegtaan wax wanaagsan baanu qabanay kanaanu kordhinay kanaanu san nidhi marka shakhsiyadiinna mutaxileedkiinu dhammaado ama laydin casilo maxaad hadalkii aad tidhaahdeen aad dib ugu noqotaan aad tidhahdaan wax alaalo waxaan qabanay ma jirto ee xukuumadda markaad jirta aad u cambaaraysa oo taasi ma hawl bay leedahay dee adeer waxa weeye xukuumadda anu markii hore waan ka tirsanaa kowdhe dee ninna gurigiisa ma caayo ila meesha waan ka tirsanaa ma caayayni midda labaad waxaan islahaa dawladaha jaarka iyo xasiyadu ku wiirsanini runtu waxa weeye xaqiiqadii bay timid waa lay casilay waa laygu keenkeenay maanaha haddaa ka daynaya waar waa saaniyo aan kuu sheegnaan kuna midh lama qaban oo waayahay iminka hadalkanaad tiri iyo hadalkaad markii hore ay tiri marka la isu eego farqi weyn baa u dhexeeya miyaanay adiga mustaqbalkaaga siyaasadaada saameyn ku yeelan waar mustaqbalba kama lihi mar haddaan wasiir noqdo war diga tag mustaqbalna ma jirin waaba la iscasilayaa waa naga tag mustaqbalna ma doonayna naga haya maxay waa lagu casilay waa maxay waa lagu casilay waa maxay wariya waa wasiirkii la soo casilay adna goormaad xabaase maqasha noo dhiib waxaad noo dhiibisay maxaan kuu dhiibaa kadabkaa go'yi berigi hore fiid baad ugu dhaafdhaafi jirto imikun baan ku helay aad lugeynaysaa maanta waar waxba fiidna ma jireen adeere waa aniga sogobka heelkaa qayuurane maxaad iga dooni yeelkadeeda miyaad ka urursan xoogaa aanad ka xiiran dee waar midh kamaanaan xiirana musuqmaasuqiba halka musuqmaasuqaa baa laygu soo oriyay aniga oo musuqmaasuq miyaa la xidhaa dee in adeer mashruuc yar baan dawada waxaan islahaa ciidiba ma ogasho waxa toosh baa saa loogu hayaa markiiba labadii habeenimo la casay wallah waar mi weelay wakaalay musuqmaasuqaas kaga noolay oo hadda mushaharkiina quraan ku koobantihiin imika mushaharkayagoo quraan ku koobnaynoo dee imikana laysoo eriba wani aniga mushaharka sumcalo wani horta adigu siyaasadaadani ma siyaasad yaroo caagadaba ma siyaasad mar kula sidaydaa wasiir yar iyo wax noqonaynba ma aniga horta malii hadalaya xukuumadda ku jireen maxaa laga hadal hayaa halkaa taagnay intaa waan qalinaya shirshiraydan haya meenay soo gaadhinba wallaahi baanan ogaynba wama sibtirayda qabata oo cidla ku dhamaaday waxaan ku yidhi siyaasaddeedana baan ku sheegayaa geedkaa muuqda ma gaadho xitaa islaantaydu ima aqoonsana oo reeraha jaarku ima oga oo cid allaale cid iyo garan maayo haddana lacagta waar heedhe miyaan gurigaa degantay miyaan bajaajyadaa lagaga agdegin oo loodhan gurigii siyaasiga miyaan la odhan maaniga wallay haddaa koob lama joogtida siyaasadaadani waa noocma dee inaadan adaa garanay xukuumadda ku jiri jiray bal ii tilmaam waa naga tag reer mihii baa teg horta weli dalka ma ka tagtayoo safarnama galaa bixisa may geedkaa muuqda ma gaadhin haddaa maxaad siyaasad ku dooni oo ma in dibadda la qabtaa weli ma dhoofta may waar wux miyuu waalan yahay dee abti haddaanad dhoofi karaynin macaal reerihiinaasaa qof xanuunsanaya la qaadaayo meelaha dabadda ma la geeyey kuug baa la isla sawiraa deetana caddaankaas la sawir caddaankaa ma isla sawirta wufuud baan la kulmay baad odhanaysaa siyaasadayda taabacsan oo arrimo badan baanu ka wada hadalnaa arrimo badan baanu ka wada hadalnaa muslim waa inta iga dhimane ma intaasaan samaynaya saasaan samaynaya sidaas samee midda labaad waad iska soo taaganta waan kula yaabanahay siyaasadaadu maban miidhiya xitaa kuma arag dee baasha iska noole waay kaalay ta kale igaga daran waxa weeye bilaa been baan ahay beentaba ma sheegayo wax nin weynaa been ba sheegayo waa qodobkaan kugu nacayba maxaad siyaasad ku doonaysaa waar waa inaad dadka intaad ciyaal iyo wax shiriso waa inaad tiahdaa kubadaan idiin iibinaya iyo waxaad been u sheegtaa midda labaad ninkaagan caanalayda lambarka ka qabanaya dee lambarka dadka waa lagu dhagaystaa saate waa la ismacaaneeya nin weyn iska dhigdhe baalash leh hadduu kusoo garaaco lambarka la boodaysa aniga sanadkaa maanta ila dagaalan in adeero wuxuun meelun igu hubso adaa dadka isgaranaya meelun wuxuun baan kula taxtaxayaaye waaya ina saar meelun ilaahay baad qabtaaniyo meelun igu hubso kaalay maxaan imaadaa in adeer waxaan doonaya weliba maryaare labadiinan munaafiq maxaa u shiraysay maxaa u shirayseena dee aayahayagaan ka tashanayni adiga maxaa kaa galay aayahayaga siyaasadaanu ka tashanayni iyo soo eriskayaga haddaba siyaasadna garan maysaan nuurkii siyaasadda idinku baxay kaana qiiq siyaasi baa ku baxo warkiisuba geedkaa ma gaadho kowdhe haye aan mar idiin sheego xukuumaddana caayaysaan
hortuni maan muruqiisa walle kaga maarmin muquuno la siiyo horuu mari waaye baleeg macdanteena malayga badeena magoolka dhirteena midhaa bixinaysa wixii dhulka miino magayna ku jiidhay caruura ku mootan shirqool la maleega haddii laga maarmay wixii madaxdeena habeen iyo maalin rasaas marinaysa haddii laga maarmay milkaynu lahayna Soomaalidu maanta waxay ku murmayso hadday ku midowday rabbow mahadaada muddaanu sugayna iimaanka Ilaahay idinka qaadi aamiin dhahab aamiin wallahi aamiin marxalada adag waynu soo marnay allow mar labaad midnimo curataa horuu mulkigeena tuu ku maamooshishaya dhulkeena maamulayay dhaxay macaluushay maatadii oo dad kale macdanteena muudsanayay muddadaynu sugayna waa maanta calankaan ka maydhno murugada ka maydhno wariyaa siyaasadan yar qawacanta waa ka daynayna dadka inaad iska daaya oo ka waantooba oo dawladda yaraynu kabkabayno imika iyaga isku taagaysa hadda cimaamad yar oo waalan u qaadataan adiguna markii hore intii hore aad wasiirka ahayd wadigii amaanayay maalinta dhadhamada iyo tuugnimadaada lagu qabta dawladda caayaysa may واتوك هذا سياسي يرى أفكاره دمنا هذا بان ورد السيو Somali da maanta haddaan la midaynin mashaakilka haysta wale ma dhammaado markii mid kastaaba ismaamul samaystay badiya macdanteena shisheeya ma miidho ahay lixdankiimad markaynu midownay halkaynu maraynay miyaynu ilownay waxaa ii muuqda milgiyo sharafteeni iqaamkii sarreeyey caalamku kama sayra ahay lixdankayma markale عالمكنو ولاية سيديسة أدونك كمو ميدوب قبيلك مروال بايسكو ماغنو هاتو وحمعنايا نتيجة دومير ميدوبا صومالي ميدوبا متكالي يا هذا ميديك تايسو ديبا إنادر وما ستايا نبيت باكو تريا سيدي أي لبا قفض markay qaaqaawayin midina midu qaadi karin ileen meel qaran ku jiro qaabiil kuma soo gale udheenu hadday mid tahay maxaynu la qaatanee qabyaalada nooga dhigay qiblada loo wada tukado qurumaha dunida jira yagoo kala qaaraday haddana qaateen midnimo dabeed qani bay noqdeen dhulkoodana lagu qolqolo Soomaalo isku qoysoho afiyo dhaqan qudhaaloho qormiyo meel wada degtana waxaa kala qoqobay khilaafkana loo dhexdhigay inay quwadaysano qaxooti ahaato oo qayrkooday tuugsada qabyaaladu way xun tahay qallooc weeyaan bulshooy qorshaa lagu meel mare ma wada qaban qaabinaa wixii talo naga qaldamay haddana fanaanadii weyneed Faaduma Cali Nagruma iyo heestii Soomaaliy gurmada habeen wanaagsan waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliyeed oo dhan oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan salaamayaa marwada maamada qaranka Soomaaliyeed maama Saynab Cabdi Macallin waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenkiisa
waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa iyo kulli mas-uuliyiintoo dhan awal ba iga horreeyay dadkoo dhan ma tirin karee qof walba mas-uul masabka uu ku fadhiya waxaan ku leeyahay caawa waa habeenkiieniye ciid wanaagsan caawa waa habeenadeennii habeen ka mid ah juun iyo julaay 26 juun iyo 27 juun iyo 1 julaay oo laba midowday waa habeenadeennii u mudnaa oo maskaxdeenna marna aan ka maqnaanin ee mas-uuliyiinta dalkeenna marwo iyo mudanayaal iyo intaad ii muuqataay salaantii ugu mudnayd mahiiba oo iga qabsada seetii weeye mahiiba oo iga qabsada markii kale wuxuu ahaa maalmihii xorriyadda mashxarad iyo heese mudan maaweelo macaan aad ku wada misataan aan marqaha ka furo madaxweyne guddoon midnimadu waa muqadis annagoo kala maarmin oo mataano walaalo ah mahuraanka soomaaliyeed ayay kala maqnaaneen waa maalintii aynu muuqanee magac yeelanee rabbi mahadinee waa maanta oo kale waa maalinteennii julaay iyo isku darkeennii nabar wuxuuna gaaro cadowga u nuglaanaba nabarkii ka kabano niyadii buskooto nabad iyo nolol baa naqi noo horseeday naxdinlaawayaashii naaquudihii shisheeyaha nacab dooni mayne nimco iyo barwaaqo iyo naruuraan dareenne niyadii qabowde nabad iyo nolol baa naqa noo horseeday ha noolaato nabad nolol iyo nabad geediyo harkiisii baddayada hiraysiyo waddankeenna hodanka hargayse iyo xamar waa isku hooyo iyo aabbe qalbiyo isku hiloobe hawli waa isla qabashee maanta yaan la kala hadin sidii aan 60kii aan u midownay maanta yaan la kala hadin soomaaliyay ha kala harinina ha midowda soomaaliya ha noolaato soomaaliya shicibka soomaaliya ha israaco dowladahooduna ha noolaadaan annaguna aan noolaano iyo heestii waxa weeye hees waxaan qaadi jirnay markii hore la dhihi jiray gacmo wada jir bay wax ku qaban karaan hadda waxa weeye soomaaliya midooba Afrika geeskeeda bari ilaa garacay xareedu gabalaxdiyo iyo roob ka da'ay Afrika geeskeeda bari ilaa garacay xareedu gabalaxdiyo iyo roob ka da'ay ونعجيب بندري سمالو كديا ومحلق قوريا يو برشد وقلب عرو ونعجيب بندري سمالو كديا ومحلق قوريا يو
gadaalkii noo dhigee shaqada gardaa duubayee gumaysiga dowlayana go'aan baa nooga yaa gadaalkii noo dhigee shaqada gardaa duubayee gumaysiga dowlayana go'aan baa nooga yaa Somali kumada oo gacmaha isqabsada oo bulshada lugaade gobolnimo wada jira Somali kumada oo gacmaha isqabsada oo bulshada lugaade gobolnimo wada jira Gayiga Soomaaliyeed hadduu barigo mana gurboodkii baa dhalo gaajadii waa laga baxee Gayiga Soomaaliyeed hadduu barigo mana gurboodkii baa dhalo gaajadii waa laga baxee Anigeelenayo garoorkii arigayo loda gaar loo dhigayo guryaha subag baa ka giman Anigeelenayo garoorkii arigayo loda gaar loo dhigayo guryaha subag baa ka giman ninkan gaagaabsane shaqada googolaho geeskii oogeenayo bilis baa garaya ninkan gaagaabsane shaqada googolaho geeskii oogeenayo bilis baa garaya Somali kumada oo gacmaha isqabsada oo bulshada lugaade gobolnimo wada jira Somali kumada oo gacmaha isqabsada oo bulshada lugaade gobolnimo wada jira gartay horta waa la isku la isku heestay waa weyneed hee adiga aan ka xantama xaggayga tago
حاجة تك حاجة هيا 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 وين تجي كراست اللي اسكو استو واسكا دافي أنا دال بدن وانعي كرسي دنبعدكم ما هستو كراسة اللي اسكو لدق دقا إيو ميلا اللي اسكو دورتا إيو ميلا لغو أرطا إيو حيق دنبيتا إيو دال دنبيتا إيو واسكا دافي كرسي يرهيقاس موجيدين أمان هالله يسيني yaan laygugu imaanin asagaan ku fadhiyaa asagaan madax ku ahay naagtayda aniga xaaskayguna ku xigeena ita kaal qayladaan dambe iyo xaaji oda cabdillah waykan war dambe waa dhammaaday orod dambe iyo siyaasad lagu ordo iyo kuraas laysku qabqabsado oo waaweyn xaaladeedu waa soo xiran ma garat waan gartay meeshaada qaylo badanaad xaaji dabadeed maxaa kursigaas ma aragtaa kee makaa kursi yarahaasaa ku koobannahay aniga yaa adigu kursiga casaakay xaafadaydaan madax ku ahay tan adiguna waxaad war raalli ahaa adiguna waan gartay waxaa taa ma taqaan ku xigeenaad ii tahay aniga ilmaha ma aragta ilmuhuna waa istaafkeenna ha noo ilaalishaan xaafadda carruurteennu war badan ka bax waa kanaa kursi yarahaan qayla ma rabo asagaan madax ku ahay waa qoyskeena adiguna ku xigeenaad tahay warku ha yaraadee waraaqihii saxiixa iyo isoo qab soo qaada sama waa annagu waa qoyskeyga isoo qab ma la isku dilaa waayo warxaajiga rabna anaga albaabkana waa lagu taagan yahay waxaa taagan xaaji awdaanga siyaasi nin la magac baxay baa taagan ma ka furaan ma ballanaan lahayn aniga asagu ballan miyaan lahayn miyaan gara waa kuwa dadkaagii baan u malaynayaa ma layska soo gela ma layska imaa sooday waxay iga furaan dhib badan oo kursigeeda dhib u leeyahay sooday soo gal xaaji awdaange siyaasi cabdullah caafimaadka waran niyow waay muddo badan aan kala maqannahay meelaad ka baxdeen ka sii waay tartiib xisbina waa ahayd adiga xisbi ka bax aniyaha lagu qabaya naga caamo xisbi maahane xaafadaa timiday waxaad u timida dad madaxaad u timid oo meel fadhiya si asluubaysanoo anshaxaysan ku imaaw xisbi adoo kalaa xisbi la dhacda ku leey cali banjarkaaga oo kalaa xisbi wax ka war wax badan aan soo halganay balaayo kula halganto intaan kala maqneen halgan kala hadaad gasho kursi kala asashi yaa eyga hordeg fiiri waa wareersan tahay wax badanaa kaa dhunsane waxaad yeelay orod haddaad igu ogeed waa iska dhaafa xaajana waxaan ku kooba ma taqaan kursiyarahaan ma aragtaa kursiyarahaan aad igu og tahay orod dambiigu ma oged kuraasta haddaad ku qabqabsayse waa kuwaas waa ku fadhiyaan madaxdii waa kuwaas muu jeedaan ku qabsada kula dhega aniga kaasa lay ammaan geliyo waana kuu sheegay adiga waxba kaama gal fiiri adiga qararax maad iigu timid ma meeshaana ila leedahay ma gurigaad ila leedahay saan inaad tahay daan ogahay gurigaada xataa ma soo aadina soo aadina balaaya ku soo aada fildarro badane iiga bax guriga nabaday soco waa kaa baxa soco hal kursiyaa samaysti kumanaan samaynaa kuman aan samayhaa ar samay adaana kugu xukumi doona ar samay ar samay tag baxd adiga kaala oy us adiga xaa ku xadanahay cabdullah waalida qarniga may adiga war waalidaada ma aqaan xaad iga rabtaa aniga war naga xishoonayo nin gurigaaga soo galanahay war xishoodkaaga ma aqaan xishoodna wax ka moogda qof yahow soo u yaalday naga xishoo war waxay garan goorta aad ya dad soo shaqeeyana naga xishoo an ma ii soo shaqeys ma ii shaqeeyaan ku iri xishoodkayga xaad ku fala xaafadaydaad igu timid edab darradaada xaafadda hanta imaan geesama yeele war waxaan adu qabto inuu naarta fureedahay ayaa naga hor wada oo islaama يا فير إيجا بحجرو كرسيالهان
kursiyarahana iimaankaad la adihiine dadka lagu qabqabsan jiray waa joogaan mahanay dhooban iyo kuraasta waaweyn kursiyarahaas ammaan halayse iiga baxaa kanaan kugu haystaa haddaan 10 xabo samaysaa kayga waa markaad dhima lahayd carsame haddaan kursi kursiga yari dib badana ka weynina ka daran masho arwaa kursi yara lama samaysan karo anaa samaysta kii weynoo la isku qabqabsaayo waa kaas kursigaan ha laygaga leexdo ma la diida war cadaa layga helaa cabdillah sidaa maad ahaan jirine dadka celi adiga kursiga yari macaankaasa ka weynina waa sidee iga celi dadka iga celi waaye balkaadi ayir degada orad qaylada dagala kor haddana waayo haddana waayo meesha xaraamad baaba ka socota kursiga yar baabana waare naa maxaad doonaysaa dadkaanan ka shaqayne joog waxa weeye waa xaajiyadii waxaan doonayay odogaanu hawl wada lahayn meeshii aanu isku arki jirnayna waan ka waayey haa marka hadduu joogo ii gudbi oo mid xoog weynina way tinaa ku gudbin maynaa naga tag maya hawl baanu wada lahayn de aniga asagu haa meelahaan isku arki jirnayna de waan ka waayey marka baliisow ii gudbi maxaad qaban jirteen xaaji waa aniga naga joog sidaa tahay dadka shaqada nala leh soo gal dadka shaqadii la leh waa la iska dulbooday oo waa la iga dulboodaya soo bax tabeeraa way baadi keentay na haga laga tag dadka shaqadii la leh qayla dhaanta kursigana waalay muxuu ahaa kursiga yareena waa adiga dadka shaqadii la leh naga soo saar naagta beeraha weynaad dul marisay naga soo saar dhegays balaayaa doonaysaan war naga soo saar baan doon man waxa doonaysaa kula doonay naga soo saar war ma ana mali hada caabo ana yeelay war ma awal ka xishoon jira ka xishoon iga bax guriga iga bax waalantay waan ka darano waan waaran saas miya feer naagta iga soo saar baan ku yidhi saas naa dhegays maqlayo kuma maqlayo ma naag feer weyn baad iska qaylinaa adiga dilboodey iska qaylinaa adigu nala hada teen naga soo saar feer intaas meeqa waay intaasa meeqa waay ma inta haa waa saddex faro saddexdaba ku taga noo badnay xaafadda saddexdaa deed naga tag adiga kaale inta imaam sheeg maxaadan hood lahayd ii sheeg waxaan lahaa haye hawlihii dhismaha ayaa soo gabagabeeyey marka waxaan u baahnaa qaar baa kala go'ay marka injineerkii wuxuu yidhi qarashkii baa laga doonayaa xaajiga marka maanta aan saasaan kuugu meeshiina waan kaa waayey waa mahadsan tahay aynu isku arki jirnay aadaad u mahadsantahay waxaan isku arki jirnoo dhaxaggii iska dhig haye shaqadii faraha badneed waa iska dhaaf haye buuq badan ma rabo haye inaan nastaan rabaa haye waa daalay haye orodyo siyaasad iyo kursi iyo balaayo iyo ka daba carar iyo siyaasad waa ku noogay siyaasadayda waxay ku ekaatay xaafadayda iyo kursiyarahaas ma arkeen oo annagu goormaanu ku arkaynaa adiga aragtidiinna waxaad ku ilaabeen kursiyarahaasaan ku dambeeya islaantayda hadda inay kula murmaysa ma ogeen saddexdeed yaan caasho u gelin allaha siinin waa siiya adigana maahino shaqadaada waa qabsana kursiyarahaasaad ugu og tahay hadal ma rabo waa mahadsantahay wasalaamu calaykum nabad shaqadiina waa mahadsanta ma rabo ma rabo maxba ma rabo waryaha ninkow ma baahan waryaha ninkow haye ninkow kursigaa ku walatay qaado idhaaf kursigaagii qaaduu ku leeyahay ninkan oo soo dhaaf iiga baxaafada iiga baxaafada iiga qaado idhaaf soco adiguna soco iiga baxaafada allaha alla maya iiga baxaafada kursigayga wax kaama gad iiga baxaafada war iiga baxaafada horta iiga bax iiga baxaafada iiga bax soc waxa wariyaa kulli dhammaan waxaa la rabaa kursiyarihii yaa laygu heestaa miyaa kanaa debisaga qabtada waxa wariyaa هلو بسم الله الرحمن الرحيم dalkayga iyo horumarkii dadkayga iyo hanashadii
intaan dihan karo garaad intaan dux abuuri karo intaan daxandhaxasho karo kalsame iyo daacadnimo dadaal anigoon hambayn anooy iga tahay gartii allaha dunidaan iska leh dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay waxaan dirayaa fariin digniin iyo qayladhaan dagaalka sokeeyahan ka daaya ku baaqaya dib baan u arriminayaa dan baan u horseedayaa ducaan alle tuugayaa dariiq baan furahayaa dabool baan faydayaa dub baan haystaa aan jabin gidaar baan duminayaa wuxuu dadayaan aqaan diin iyo dhaqan baa ka mid ah hab dowladnimaa ka mid ah dastuur sharci baa ka mid ah intaas oo iga dayacan dadkaygu u baahan yahay ayuun baan doonayaa dadaal keliyaan farraag dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow war dadow war qaraaboy bahey xidid iyo xigtooy tolow dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow dabkii gubashada lahaa kulkii danqashada badnaa kuwii nolosha u daraa midkay nagu soo dubeen adoo weli diifti qaba dushaadana boogihiyo ku yaalliin daqarradii adoo dambaskii yaqaan dambaaburadii ogsoon u jeedana dogobyadii inay duulduulayaan docdiisana aad fadhido inaad darsataan cagaha ma diidanidoo arkaye dadkaygoo waa sidee kaskiinnu ma doorsan yahay maxaad damanta u tihiin dunida aadniga ku nool maxaad ugu dayan la'diin dantiinna maxaa ka dhigay midaan da'iba u korayn midaan doodeed furayn midaan marna laga duwayn dariiqii guuldarrada dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow ilaahay nama darbayn dhiggeen noogama darrayn wuxuu ina siiya deeq midaan duniduba lahayn dabaysha macaan keliyo cadceeddana diidisiyo hawada deggan baa ka mid ah dalkeenna barwaaqada ah nimcoolayda daaqda iyo duunyada fooftaa ka mid ah dubaaxdaan qalanno iyo dararta aan maalno iyo doobiga buuxaa ka mid ah dadkaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay dadow waryaarahe dadow dagaalama waa kasnaye isdaaya ma garan karaa qaxoodida waa karaye miyaynan dega aqoon daaraha duminoo gubne miyaan dada la odhanayn dil waate inuu isdillee miyaan laga daalin godob war miyaan la dareemi karin inaan dirir wiil ku dhalan inaan baryo qoon ku degin inaan diihaal ku biin inuu dawarsigu xu yahay inaan diintu oggolayn war miyaan la dareemi karin inaan dawladi ahayn siday ragu doonayaan dadka waanadiisiyo deelayda maansiyo heesaha digniinta goortan ku daalo wax daneeyo waayaba daaban iraahda misna waxaan dareemaa inay dadhila tahay markaasaan dabuub gabay tixa igu darsoona dib u soo cusbeeya deeyarta u tilmaama dalka horumarkiisiyo waxay dowladnimo tahay waxaan uga digaa ceeb dulmi iyo qabyaalaad wax kastoo u darbaan daayo yidhaahda soomaalay dhammanay dib wixii inoo dhigay dhamman ma iska daynaa danguud